السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalaha garabahayga oo ku soo dhawaada wehelkii dunida iyo waxtarkii bulshada aniga waxaan ahay xafsa halka aad naga daawaneysano xafsa channel alaa barnaamijkan waxaan soo gudbisay islaaniga walaashin xasiid soo dhawaada meel kastoo aad joogtiin daafaca caalamka galooda Soomaaliya waxaan rajaynaynaa caafimaad qabtaan insha Allah waxaynu soo socday kitaabkeena imtixaanaha ee la magac baxay baro boqol xadiis hase yeeshee intaan u gudagalin darsigeena maanta ugu horeyn haddii ay tahay marka ugu horeysa aad channelka booqatay please subscribe saar haddii aad hore noo joogtaan like saar u share gari asxaabtaada oo la wadaag nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay waxaad naftaada la jeceshahay la jeclo walaalkaaga kusoo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub iyo darsigeeni 83 باذن الله بسم الله عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه المسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه المسلم عن جابر رضي الله عنه جابر الله كرال النقدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله نودقلينا حريس كركي ساعتي قال وحيري إن بين الرجل وبين الشرك قفك inuu shirki sameeyo amba gaaloobo waxa u dhaxeeya waxa waaye tarku salaa inuu salaada ka tago yacni qofka islaamnimadiisa hadduu salaada ka tago islaamnimadiisa calaamad su'aal ayaa saaran shaki ayaa ku jira islaamnimadiisa salaada waa shay culus oo u baahan ilaalin qofkana cadeynaysa islaamnimadiisa waxa waaye qofka inuu shirki sameeyo amba gaaloobo amba shirki ku dhaco waxa u dhaxeeya oo lagu kala garanayaa waxay tahay cadeyna tarku salaad ka tagista qofka hadduu salaada ka tagaa waxay tahay macnaha shirki iyo wal kufri inuu ku dhacay insha Allah noo fududeeyo salaadeena fudeed Allah noo wadiyo salaada waa shayga u horeeya qabriga aan galno nalga xisaabinayo hadday xumaato iyo hadday wanaagsanaataba abaalmarinteeda waan leenahay salaada Allah noo fududeeyo insha Allah kuwa salaada ilaaliyana Allah naga dhigo oo xifdiye salaada runtii waa shay qaali ah laakiin ka hadalkeeda inta u soo koobi karin باذن الله waxaan rajeynayaa xadiiskan inaa wax badan ka fahanteen asxaabtiina ala wadaagi doontiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu istacin billaah walaa tacjaz ixris calaa maa yanfacuka